kusimaha gudoomiyaha ahna gudoomiye ku-xigeenka golaha badbaadada koonfur galbeed aadan maxamed nuur aadan surunsuur ayaa maanta soo gaaray magaalada Baydhabo. Gudoomiyaha ayaa soo dhaweeyay qaar ka mid ah xildhibaanada koonfur galbeed iyo ururada bulshada kadib waxaa loo soo galbiyay halka uu hoyga Baydhabo uu kaga degan yahay. Ugu horeyn soo dhaweynta ayaa waxaa ka hadlaya Mayow Teesiyo oo ah xubin ka mid ah golaha badbaadada koonfur galbeed. waxaan soo dhaweynaa gudoomiyaha golaha badbaadada koonfur galbeed Soomaaliya maanta asoo muddo dheer shaqo oo golaha ku maqnaa farxad weyn ay noo tahay gudoomiyaha soo dhaweyntiisa. gudoomiyaha soo dhaw wadankaaga aad ugu jecel yahay dadkaaga isaas ugu faraxsan yahay soo dhaw gudoomiyaha. Kusimaha gudoomiyaha ahna gudoomiye ku-xigeenka golaha badbaadada aadan maxamed nuur aadan surunsuur ayaa ka hadlay soo dhaweynta iyo ujeedka Baydhabo uu soo gaaray. sidiisa la socotaan in muddo wax marka maqnaa muddo 5 bilood wali seeday xamar runtii wali badanna bilaha gobol dawladda federaalka kulmo badan weedani dad badan kale saarnay beesha caalamka saarnay shaqo ciidan bileerna gobolni insha Allah warbixintii iyo walaha ku fayday diideen doonaan ma hadnagay dadka runtii ilaabtii ku bilaw halsa ilaa iyo hadda meel banaan in teeganay ana dhawaayay runtii qiirin ingiriin runtii in oo waliba dadka maxaa bileerna nagaan oo aan la koobo nagaan may wali halsaadii idii suru ilaa iyo halsa wada teeta dadka idii kama nagaan saadradii walaagi warbixin ama waame ama tirooyin dibadda sheegay maadaama dadka daalanayeen inaan tiignaayeen bishan aynu ku guda jirno iyo bisha 9aad oo soo socota ayaa la filayaa in ay magaalada Baydhabo ay ku soo qulqulaan wafuud ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed oo u tartamaya qabashada xilka madaxweynaha koonfur galbeed. Xuseen Maxamed Nuur, Somali News TV, Baydhabo.